23 February 2012 waxaa magaalada London xarunta dalka Britain ka qabsoomay shir laga hadlayay arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya waxaana shirkaasi ka qayb galay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaanu madaxweyne Siilaanyo halkaasi ka jeeday khudbad taariikhi ah mikrofoonka wax madaxweyne Siilaanyo ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron waxaanu madaxweyne Siilaanyo uu ka jeeday halkaasi khudbad waxaana ku bilaabatay khudbadiisu sidatan I thank the British government for hosting this conference. It's a great pleasure for me and my delegation to be here today on behalf of Somaliland. It's the first participation of Somaliland in a conference on Somalia. waxaan uga mahad celinaa dowladda Britain ee nagu marti qaaday shirkan farxad weyn bay u tahay aniga iyo wafdigaygu inaan ku sugannahay halkan maanta anagoo ku hadlayna afka Somaliland waa markii ugu horeysay ee Somaliland ay ka qayb gasho shir laga hadlayo arrimaha Soomaaliya aan halkan ku nimi markii dowladda aanu saaxiibka nahay ee Britain nagu qancisay oo aan wadaagno taariikh dheer sidoo kale waxa aanu halkan u joognaa annaga oo leh dana badan iyo xasiloonida iyo deganaanshaha gobolka waxaan rumaysnahay inaan wadaagno aragtidayada ku aadan soo kabashada iyo xasiloonida Soomaaliya iyadoo laga faa'iideysanayo wixii laga bartay Somaliland waxaan si weyn ula tashaday hogaamiyayaasha bulshada rayidka iyo asxaabta mucaaradka intaanan go'aansan inaan aqballo casuumaadda shirkan Somaliland waxay leedahay laba gole sharci dejineed golaha guurtida iyo golaha wakiilada waxaan si wada jira ugu codeynay inaan ka qayb galno shirkan dhaqankan wada tashiga iyo dimuqraadiyadda ayna waxay ka jiraan dalkayga waxaan si buuxda u fahansanahay waxay salka ku hayso dhibaatada ay wajahayso Soomaaliya annagoo u dareemayna ugana damqanayna si aan cid kale u dareemaynin waxaana naga dhaxeeya xiriir walaaltinimo iyo mid juqraafiyadeed muddo 30 sano ah haddaba dowladda dib u soo laabashada xasiloonida Soomaaliya waxay ku doodaan inay ku jirto wixii la isku oran jiray xuduudaha Soomaaliya dib u raadinta xuduudahaasina waxay khatar ku tahay nabadgelyada aan haysano waa inaan xisaabta ku darsanaa inay xaqiiqdu tahay in siyaasiyiinta Soomaalida ay u dibdhaxaad u yihiin xalkuna uu Soomaalida ku jiro gacmahooda waxaan si weyn u rumaysnahay haddii la kordhiyo taageerada la siiyo Somaliland inay kor u qaadayso soo kabashada iyo xasiloonida Soomaaliya maxaa yeelay waxay xoojinaysaa doorkayga tusaalaha u ah sida loo dhiso nabad iyo dimuqraadiyad Somaliland waxay dhisatay dimuqraadiyad iyo xasilooni ku dhisan habdhaqameedka xalinta khilaafaadka Somaliland waxay si firfircoon ugu jirtaa dagaalka ka dhanka argagixisada iyo burcadbadeedka gobolka salaasadii toddobaadkan baarlamaanka iyagu waxay ansixiyeen sharci ka dhan ah burcadbadeeda soo jiidashada maalgashayaashu waxay ka mid yihiin hiigsiga mustaqbal ee horumarka Somaliland sababtaasina waa ta aanu shalay u daahfurnay iskaashiga maalgashi ee Somaliland ee magaalada London ma aaminsanin in dib soo laabashada dowladda Soomaaliya ay dani ugu jirto shacabka Somaliland iyo geeska Afrika toona waxaana shacabka Somaliland ay doorteen in dantooda ay ku jirto madaxbannaanida iyo go'aansitaaga in ka badan 20 sanadood dibna uma noqon karno haddii aanu sidaas samayno waxay noqonaysaa inaanu xaqiirnay taariikhdayada goolahayagii iyo xaqiiqdii siyaasadeed oo ah dowlad lagu soo doortay si dimuqraadiyada waana laga maarmaan inaan ixtiraamno rabitaanka shacabkayaga waa in la helaa wadahadal caalami ah oo ka furma mustaqbalka Somaliland kaas oo wadada u xaadhaya aqoonsiga Somaliland waa lama huraan guulihii iyo nafuridii dadkayagu ay u soo mareen Somaliland waxa intaas ka hooseeyana ma u qalbaan shacabkayagu We are convinced that an internationally recognized Somaliland will be even better placed to contribute to a stable and peaceful Somalia.